أضمن دي سلام يا جايز وصير شاكر في تان هيلث انتربرنوين waxaan doonay maanta inaan idin wadaag qodob aad u muhiim ah oo saameyn ku leh nolosheena haday tahay dhanka wanaagsan iyo haday tahay dhanka xunba qofka bilaadanka maalin kasta wuu fikiraa haday tahay caafimaadkeena dhaqaalaheena qoyskeena mustaqbalkeena iyo nolosheena iyo dadka maanta nagu hareeraysan iyo bulshada saadarteed fikirkaasi hadii aanu lahayn qorshe hadaf iyo ujeed ama himilooyin maanta wax ku ool oo soo saara waxa imanaysa fikirkaasi inuu adiga saameyn kugu yeesho waayo maaha fikir midhadhal sameynaya saadarteed muxuu noqon doonaa fikir kugu abuura warwar fikir kugu abuura buuq maskaxdaada fikir marka dambe kugu diida hurdo iyo maxay ahayd deganaanshiyo la'aan fikirku hadduu heer kaa gaadhana wax weeye adigu ayuu caafimaadkaaga saameyn ku gaarsiin doonaa waxaan kugu samayn doonaa yacniga hab aanad jeclayn marka dambe inaad nolosha u wajahdo marka taasina waxay noqonaysaa noloshiina buuq iyo fikir kaa noqoto haddaba iminka markaad doonayso inuu fikirkaagina noqdo fikir badala waxaad u baahantay fikirkan noocana fikirkan uu wanaagsan yahay laakiin haddii uu yeesho qorshe hadaf ujeed iyo himiladiisa uu maanta uu wataanay tahay mid wax soo saar leh oo maxay ahayd midhadhal samaynaysa wuxuu samayn doonaa fikirkaasi mid maanta hirgala deetana wuu ku noolaysiin doonaa fikradda kugu soo dhacaysa aad qorayso mid aad ka shaqaysiinayso marka fikirkaasi wuxuu noqon doonaa mid hirgala adigana wax kaa bedela noloshaadana bedela mustaqbalkaagana bedela qoyskaagana bedela bulshadiina bedeli doona marka haddii aynu ka shaqaysano fikiraadkeena waa inuu adeegsano wadadii ugu habboonayd oo ah yacniga qorshihii iyo ficilkii iyo maxay ahayd hadafkeediiba waxay ma doonaa inuu markaa inoo hirgalo oo fikir wanaagsan wax ku oo leh waxaad arkaysaa dad fara badan oo fikradka ay yacniga keenayaan mar walba waa fikirkaana keenay fikirkaasana yacniga iga dhashay hadhowtana aan waxba soo saar lahayn laakiin hadhowta markuu arko qof kale oo fikirkii yacniga hirgeliyay oranayo fikirkaana ku fikiray marka macna ma sheegayso fikirka haddaad ku fikirtay hadduu maskaxaas ku dhacay waayo qof walba fikiraadka waa laga sinaan karaa laakiin waxa lagu kala duwan yahay wax weeyaan waxaad maanta ka fikirayso qof kale isna uu ka fikiraya isku fikiraad baan dhammaan bulshada laga yaabaa inuu mid gaar ah noqdo kaago laakiin ay yar tahay inta ka fikiraysa haddii aanad hirgelinin way adkaanaysaa inuu fikirkaasi uu shaqeeyo maxaana markaa ka dambe keenaysaa iska daa inuu adiga saameyn kugu yeesho dhanka xuna marka dambena fikirkaasi wuu dhiman doonaa si ay ku dhiso khasaaraha ka dhalanaysa haddaba fikirka kale wuu ku noolaysiinayaa fikir nooloo tayalana uu noqonaya marka kaasaynu doonaya in fikradeena u kala bedelno habkaas markay timaadana nolosheenu sidii hore aan mayso qof waliba wuxuu markaa samayn doonaa hal abuur wuxuu samayn doonaa fikir wanaagsan wuxuu samayn doonaa wax soo saar wanaagsan wuxuu samayn doonaa يعني سامي وين سيدي نفتيسي برشيدة ما تبغى حراريسا مركا ما أنت بديك تنبي وقف أي سفكر كاجا إنه نقدر مد وحصو صار سمين أبرد ما سنتي